أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ka hadlaynaa maanta maxay ahaydee dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay ka sameynayso dalka ay ka wado taas oo ah mu'aamarad loo dhigay ciidankii sidii uu sheegi jiray ninka la yiraahdo aadan Ingiriis waxay noqotay xaqiiq ciidamadii mu'aamarad loo dhigay marba meel inta la geeyo dam laga siinaya dhowr boqol wadankii bilaa qabsatay wadanka waxaa haysta ikhwaan muslimiin waxbaan isma dhaamaan iyaga kuwan dadka laynaya waa isku mid marka wallahi dhibaato weyn wadanka ka socota dhibaato weyn baa ka jirta wadanka hadda bishan gudaheeda dhowr boqol oo ciidamadii la leeyay kuwii military laga keenay iyo kuwii kaleba ilaa xalay waxa la sheegay intaas dhowr boqol oo ciidan ah oo la dilay kuwii military ah maalintii dhawad khudbadeynay xasan sheekh maxamuud waa la qaadayaa buu yiri furimahan la digeynaya halkii uu geeyay mu'aamarad lagu leeyay taa waxa kaaga sii daran ciidankii baan arkayno saa loo tuuray meedka saa gabadh lagu tuuray sida raashinka badiyaa oran kara dadkan wadada islaam yaa lagu sheegi karaa gaalka ma sameeyo sidaas gaalada iska daa islaamka bal haba la yeena meedkiisa intay soo qaadeen bay sida raashinka u tuureen oo qaarna dhulka la dhaceen oo sidii bariiska loogu heesayay habeeyahidoy ilaahay baad arkaan leenahay daalimiinta waa daalimiin ummadda islaamka saa u gelaysa marka warkii uu sheegay ninka la yiraahdo aadan Ingiriis waa xaqiiq weeyaan ma hore wato yiri ciidamada meesha ka carareen oo ka tageen ciidamada la leyn doonaa sidoo sheegay weeyaan dhowr kun bay marayaan ninka inta la leeyay xoriyada iyagu jooga dam lagu siinayo kuwii Afrika keenay waddankeena iyagu meel lagu leeyahay mu'aamarad laftigood marka wax aad iyo aad looga xumaado wallahi waddanka ka socda qaar baan maqlayay doorasho la gelaya kana la gelaya doorasho qof iyo cod ay wax kana la sameeyay meesha waddanka mu'aamarad ba ka socota waqooyigan dagaal baa laga bilaabay dagaalkan wax ka dambeeya Ismaaciil Cumar Geeley ninka la leeyahay xasan sheekh wala yiraahdo ikhwaan muslimiinka ummadda islaamad mariyay waxaan maqlayay mar hooyada la leeyahay xasan sheekhow maxaad ugu dhiibtay mahad salaad isku mid weeyaan waxa uu geeyay maxay ugu dhiibay si ay diidan wax kale ma waa madooda shaqeynaysa isku mid aan isdhaamin marka waddanka Soomaaliya khatar buu ku jiraa xagga waqooyiga dagaal buu ka bilaabay warka la sacaanood dagaalka Djibouti laga soo abaabulay waa ka weli ka soconaya Puntland oo ka dhigay wata soo muuqata waa tuura Puntland baa dagaal ka dhacaya meel kasta oo ninkan mu'aamarad buu ka dhigay waana ikhwaan muslimiin iyo dhaqankiisa ummadda islaamada baabiyaan marka dad islaamada wax ku dhaqamayno arag ikhwaan muslimiin ku dad khaldan weeyaan waa dad khaldan dhaqankan ay ku dhaqmayaan Soomaaliya gaalka ma dhaqanto tagaalada waxaan leenahay ilaahay ka qabto ummadda islaamada waxa kan waddanka qabsada horena waa loo gaxsan sheekh dadka wixii keenay waxay ahaayeen qabiil iyo qurun baa lagu keenay iyo mad waalano hunguri baa galay ka mid yahay deni dadka kale daaroodka ah deni ka mid yahayna hunguri baa waalay xisaan meesha ka helaysa waxa kale lagu keenay inta ugu sii badanna waa nukaale wuxuu tarimaayay waxa waddanka baabay ummadda islaamada la mariyay aad iyo aad baan nagu xunnahay garaadadiina warkooda wana soo gaaray sida loo galay garaadadii yakana waxa la doonayay in mu'aamarad loo dhigo la laayo ilaahay wax ku barayna insha Allah inay ku soo noqdaan iyagoo nabad qaba waddankooda ay dhulkooda ku soo noqdaan wararku waxay lagu soo gaarayaan inay joogaan maxay ahaydee meesha tan u degan yahay iyo intu degan tahay airportka inay degan yihiin la geeyay lagu soo waramaya wararku nagu soo gaarayaan markii la damcay mu'aamarad loo dhigo ciidamada iska hor yimaadeen ciidankii ilaalinayay maxay ahaydee oo SSC ciidamadii ka soo jeeday goboladan maxay ahaydee SSC iyo Puntland markii ciidamo kale ka hor yimaadeen oo lagu talagalay in lagu laayo maxay ahaydee garaadada airportka la geeyay Amisom baa imika gacanta ku haysa marka warkoodu waa cadaaday nimanka warkoodu waa cadyahay horena waa caddaa dadkan dawladda uu sheegay baan la yaabsanahay oo la dawladda meel joogta wax dawlad la yiraahdo waddanka kama jiraan koox maafiya shiftada qabsatay oo ku tala gashay inay dadka layso oo baabiiso isku dirto wixii heli
degdeg ilaahay u dhaafiyo dalka waddanka ummadatan musiibada loo soo diray dadka dhalinyarada dhalay iska tago saa ugu dhamaanaysa habeen iyo maalin aalaafka la dilayo aalaafka waxaan leeyahay haddii wax idinku hadhan ka kaxaysta ciidankan waxaa leeyahay fantashiru fil ardi fantashiru koox maafiya waddanka qabsatay oo doonaysa waxay cunto iyo waxay disho bay meesha u yimaadeen waxay dilaan iyo waxay cunaan maxay ahayd waana gaadheen ujeedadoodii puntlandna waa kuwa fidmo dhex dhigay marka maxay ahayd waxaanu leenahay ilaah baa idin arka ilaahay meesha idin dhaafiyo mukrimiin baa haysata waddanka mukrimiin dhiigga islaamka banaystay oo aan cidna dhaafaynin oo ummadda ilahay isku wada diray odaga kan madaxa ballaaran la yirahdo maxay ahayd Ismaaciil Cumar Geelena marunbaa madaxa xun lagaa jebin doonaa meesha lagaa tuuri doonaa weligaa inaad ka taagnaani waajibaadkaaga waad heli doontaa waan leenahay waajibkaaga waad heli doontaa insha allah maxay ahayd waddankaaga markaad soo baabisay waad Soomaaliya usoo jeesatay ilaahay baa idin arka waan leenahay ilaahay baa laydinku reeba daalimiinta waa daalimiin xun waddankay ceeb bay soo jeedaan iyo dibadhac wax faa'iido ay keeneen ma jirto dad baa maqlaya doorasha la qabanaya xasan sheekh doorasho qof iyo cod doorasho qof iyo cod iyo wuxuu qaban karaa toona ma jirto daalin way waddankii burburiyo dib cish doorasho qof iyo cod hadduu rabo muxuu markaa loo diiday diyaarka waa yahay dowladdiisa ka horreysay doorasho qof iyo cod toona mar been iyo dulmi ku dhaqmaya been weeye iyo qurun xaar bay lugta ku laqayaan xaar bay luga kula jiraan wax dowladnimo iyo xorumar iyo wax wanaag laga sugaya toona ma jirto waa afka baarkiisa iyana ummadda islaamad la isku diro baa waxa loogu nacnacleeya loogu hadlaya wax wanaag laga sugaya maaha xasan sheekh ninka wanaag ka sugayo oo dowladnimo ku sheegayo adaa way waxa la ninkaad quus qoon sagaal quus aragte oo aragte xasan baa dowladnimo ka sugaysa ummadda ilaahay in isku diro isku wada dilo mooyaane wixii aaga koonfurta iyo xag aagaa joogana in dam laga sii lalaayo dadka waxaan leeyahay wixii meesha ciidamo ka joogaan ama cid ka joogto ka baxa oo kala baxa dadkiina ciidanka xamar jooga iyo ciidamada dhulka kala joogow wixii aan halkaa u dhalaan oo ka taga kan la leeyahay waxa la yidhahdaa ra-iisul wasaarena wuxuu yahay oo la baray dadkiisi buu ka soo horjeedaa halkaasuu haweenada maxay ahayd cagaha meedhaya cagaha meedh haween maahay maxay ahayd xasan sheekh iyo wixii wato oo la shaqeynaya umaydh cagaha wala meel baanay ku gaarsiin kuwaas unukaale warkoodu waana soo gaadhay warkiinu inaad safaaraddii jaahilnimo iyo inta ka qabtaan foolxumo ilaa waxaa tiin ummadda maxay ahayd meesha iska timi aan dowladnimo iyo waxa ka aqoonino qaara macallimiin ahaan jireen qaara kuwii qudaarta suuqa ku iibin jireen weli ma maqlay caalamka dad safaaradda aan ilahay ka dagaalamaya safaaradda waxay maraykanka maxay ahayd dadkii ciidanka waardiyeynayay oo dee amerikan buu badnaa baa la yiri bay faraha la galeen mudan soomaalida leen jireen farahay la galeen baa la yiri waxayna mudan soomaalida leen jireen marba qaar leynayeen dee waata maraykanka degdeg usoo jawaabay degdeg jawaabtay ku soo celiyey oo xaar iyo kaadi kaga sii daayay markii ay xilka ka qaadeen qaar badan waxaa la cagti joogsan weyda mar bay ceeb la kulanta war waxaan ummadda soomaaliya la ceebeeyey dhinac walba foolxu bay ka wadaan iyo ceeb wixii noo keenay waxaaba dembiga qaadaya ilaahay ummadda islaamada idinka qabto degdeg idin dhaafiyo on leenahay insha allah bismillahi assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu